wadadani martay isgoosida Huludaag iyo Baaru wax oo la saarayo laami casri ah ayaa waxa iska kaashaday maamulka gobolka iyo rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed kaas oo qayb ka ah mashruuca dhista dalkaaga iyadoo hawsha si gaar loogu xil saaray shirkad qaabilsan dhismaha wadooyinka oo laga leeyahay dalka Turkiga agaasimaha guud ee rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay dhismaha wadadan ganacsatada suuqa Bakaaraha sala socoto suuqa Bakaaraha wuxuu ku fadhiyaa muhiimad aad u weyn oo Soomaaliya oo dhan ah gaar ahaan geeska Afrika muhiimad gaar ah u leeyahay wada socota waa financial districtiga wadanka Soomaaliya u leeyahay oo meesha laga sugo qiimaha dollarka iyo isbedelkiisa badeecada shilka Soomaaliga ah waxa uu ku fadhiyaa baaxad aan caadi ahayn oo saddex xaafadood oo xamar ku yaala ah runtii hodan iyo Huludaag iyo Dhigley intaba waa u gaaraa suuqa Bakaaraha kumanaan kun oo qof oo ganacsato Soomaaliyeed ah baana maalintii subaxdii u soo kalahda kana ganacsata malaayiin qof oo Soomaali ahna waa lagu badbaadiyaa waxay ka helaan noloshoodii iyo noloshii reer qoyskooda ay u baahnaayeen sadarteed muhiimad gaar ah suuqaas u leeyahay Soomaaliya dib u dhiska laamigan waxa ay qayb ka tahay bilic soo celinta caasimadda waxayna tani muujinaysaa bulshada in ay wax dhisa karaan iyadoo la isku halin gacmo shisheeye Jibriil Cabdi Maalinguur telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho